بسم الله الرحمن الرحيم. waxay la tahay in muuqaalkii loo jeedo oo qof walba uu arki karo. waxaan rabaa inaan faalla ka sameeyo furfurisi yani inaan wax yar ka sharaxo programka bar ama baro oo aan ka sameeyo wax uun ma garanaysaa sharaxaad yar oo qof waliba uu ku qanci karo faallada iyo waxa ay tahay iyo ujeedkeeda. waa mid xurufta bar ama baro waxay la tahay qof waliba fasiraadeeda uu garan karaa. waa xuruf dowladii kacaanka Allah naxariiste Jaale Maxamed Siyaad ay curisay oo dadka lagu barahayay luqadooda. waa xuruf fariintoodu ay tahay ficil amar oo qofka lagu amrayo inuu dadka wax baro ama isagu barto. waayo waa inaad dadka wax bartaa ama aad adigu wax bartaa. bar ama baro marka xurufta bar ama baro ma ahan oo kaliya xuruf loogu talagalay Soomaalida ee waa xuruf loogu talagalay ummadaha caalamka oo idil moogta. ummad waliba inay yacni noqoto ummad wax isbarta ama wax barata. si lamida ficilka ileen oraah waliba waa laba shub bay u dhacdaa oo qolo sibay u aragtaa qolona sibay u aragtaa. qolada curada oo qorta sibay u aragtaa. qolada cilmiyaadka la barto ee bani aadamku bartaana cilmi ka dhex sameeydaahina sibay u aragtaa. oo qolyaha la yiraahdo agrofishinalka dadka agrofishinalka waxayba cilmi ka dhex sameeyaanba cilmiga dadku ay qortaan ama ay bartaan iyo cilmi ka dhex sameeyaan. marka bar ama baro waa yani waa word ficil amar ah oo laba shub u dhacda oo ah bar ama baro inaad adigu dadka wax barto ama aad adigu wax barato. sheegaas marka dadka aad barayso ama aad baranaysaa waa shay dabcan aanan aqoon u wada lahayn ama dadku u lahayn ama adigu aadan u lahayn. haddaadan adigu u lahayn waa inaad barataa. haddaan dadku u lahayn oo adigu aqoon u leedahay waa inaad dadka bartaa. marka xurufta bar ama baro macnaheedu horta waa saas. waxaa loola jeedo siyaasad ahaan waxaa loola jeedo xurufta bar ama baro sidaas waa. waxaan rabaa marka maadaama faalle xasuus xaar la yiraahdo aan Facebook ka wado oo bar ama baro ay gundo u tahay ama college ay u tahay. xurufta bar ama baro waa college-ka faallada xasuus xaar yani hoyga ama halka lagu barto faallada xasuus xaar oo aan uga hadlayo suugaanta dunida iyo fasiraadeeda maadaama ilaahay iga dhigay qof agrofishinal ah oo akhriya ujeedyada iyo hamiga dadka dabadeedna cilmi ka sameeya. ummad waliba hami bay leedahay ujeed bay leedahay waxbaa u qoran waxbay isbartaa waxbay isu sheegtaa. inaan waxaa yani dadka waxyaabahaas cilmiga ka sameeya yaa ilaahay iga dhigay maaragtay dadka aragtida u yeesha. aragti kalena maahan dadka noocaasi dabcan waxay ila tahay qofkii koowaad inaan maanta ahay oo ay yar tahay dadka aragtidaas oo kale leh. dadka aragtida marka agrofishinalka lah oo agrofishinalka aragtida ah dadka leh waa inay yihiin dad ku xiran cilmiga xidigiska yani bulshada xidigiska iyo cilmiyaadka xidigiska dad ku xiran waa inay yihiin
oo aad wax uga yaqaan cilmiyadaas xidigiska aniga marka waxa ii sahashay tacliintan inaan barto gabar la yiraahdo waris oo jinnijaan ah oo degan cirka qaasatan xidiga la yiraahdo Mars waxay bartaa sheekooyinka nolosha iyo sheekooyinka maadiga ah iyo kuwa diiniga ah oo run ahaantii hadalhaynta bulshada iyo aragtiyahooda qoran hadday buugaag tahay iyo hadday suugaan tahayba ku yimaada oo saanta noloshu ay wado mahad ka gaadho oo fiican weey gabar fiican weey maaragtay oo tacliinta cilmiyada xidigiisa ku yimaada aad ii barta jinnijaan kasta iska tahayba ila qof waliba nafta uu nacfiga ku qabo ama faa'iidada uu ku qabahay waxay la tahay naf weyn bay la tahay aad iyo aad qaymo maaragtay u leh marka faaladan xasuus xaar oo dadka maskaxdooda inaan space ka helo aan rabo aan yani waxa aan sheegay ay wax ka faa'iidaan waxa weeyaan in waxaan ku doonayaa yani inaan ayagana aragtidooda barto anna aan baro aragtideyda faladaas ujeedkeedu wax kala maahan waa inaan anigu bartaa dadka aragtidooda yani waxa ka soo noqda waxa aan u sheego iyaguna ay bartaan waxa aan u sheegayo oo ay dhuuxaan waxa waaye marka faladaas oo aan Soomaalida luqadooda ugu sheegayo waxa weeyaan waxay ka timid inaan falada bilaabo book la yiraahdo Bioinfology Holy Book oo aan qoraal ku wado ayaa jira buugaas marka Bioinfology Holy Book waa book cilaadeed aragti cilaado oo guud ahaan caalamka oo dhan qosaysa ay ku qoran tahay oo maaragtay fasiraya quraanka iyo cilmiga nolosha barkeed cilmi kale oo nolosha fasira ama ku saabsan ama ka hadlahay ma jiro waa quraanka kaliya hadday mid aakhira tahay iyo hadday mid adduun tahayba quraanka baa ka hadla cilmiga nolosha waayo nolol anfaalkeeda baa yaqaana si u samaysan tahay iyo ujeedkeeda waxay tahay marka inaan cilmiga nolosha ka hadlahay waa inaan nafaalkeedii xusaa halka isku soo xusay ku xusay waxa uu nafaleeyahay oo beero iyo sida uu beero waa quraanka waa inaan marka isaga ku dabaqa aragtida buuga marka buugaas la yiraahdo Bioinfology xarafka marka Bioinfology macnaheedu waxa weeye guusha aragtidaada Bioinfology macnaheedu waxa weeye guusha aragtidaada yani qofku wuxuu qoraa wax looji ah ama waxa aan looji ah wax suuragal ah ama wax suuragal ah wax guura ama wax guurayn marka Bioinfology macnaheedu waxa waaye guusha aragtidaada aragti waliba marka ma noqoto cibaado ma noqoto aragti waliba cibaado ma noqoto waa hadba sidii natiijadeeda aad u heshaa يوم الحساب حبة سيدي أنا نتيجة أول شيء يوم الحساب هل ميد هذا لا إيمانين أركتو نكس هذا لا تما أركتو نكس إنه وذي ليس بركة إن بوجاس كهذلو أو Bioinfology مادام أو إنجليش كقرني هاي دون ذلك أنا أقول ترى قلنا علمنا نلصق يهير كذا وكهذا لايو quraanka fasirayo nolosha fasirayo tabta wax loo qoro iyo sirta iyo maartay siiqada quraanka uu barayo yaani inaan marka faaladaas xasuusaar aan sameeyo ujeedkeedu saas yahay waxa weeyaan marka quraanka kariimka ah waxa waaye qofan horta xarafka quraan fasiri karin inuu yiraahdo the whole system oo quraankan fasirayo ayadana ceebo halka xaraf oo kaliya quraan qofka aan macnay karin way adag tahay in laga dhageysto aayaadkeeda oo dhan aan macnayna horta waa inaad dhiraan dhiridaa oo tabteedii la timaada horta xarafka ma fahamtay koow ciwaanka ba ah waa kitaabkan magaciisa muxuu yahay quraan bal quraan fasir
markaad xarafka fasirto unbaad inta kalena fasiri kartaa laakiin haddaadan xarafkii fasiri karin oo quraan waa quraan aad leedahay sida berigii safiir salaadkii la baraayo faslun hada kan faasilun wixii waa wareer horta tabti iyo xeeshi waa in la yimaadaa xarafka quraan xaraf ahaan lagu fasir lahaa markaad xarafka fasirto inta kalena waad fasiri kartaa oo tabteedii iyo xeesheedii iyo kartideedii iyo kalsoonideedii waad qabtaa marka waxaan rabaa buugga biology guusha aragtidaada inaan ku fasiro quraankii buug cibaadeed waaye Englishku qormayo dunida aan ugu talagalay waa daabacada heerkii koobaad ee labaad waliba ilaahay baa marka mahadle inaan arintaas aan sidaas u garabsado natiijadana yom xisaabka baan heli doonaa marka haddaba marka quraanka afar qaab ku fasirmaa oo buuggan siiqadiisa ama ujeedkiisu ay tahay marka horta quraanka ka hadlaysaa waa in carabkiisii aad leedahay oo maarta carabkaaga horta bal aad umal quraan aad tahay oo carabkaaga uu fasiri karaa uma horta bal ay u qoran tahay inay quraankan fasiraan oo bartaan oo u fududahay carabkooda oo yacni in aan lahayn oo inay yacni guuleystaan mooyaane aan guuldareysan horta carabkoodii waa inaad leedahay ku hadli ku dhawaaqi kartaa xurufaadka idil ayadoo adigoon hal xaraf carabkaaga uusan qaldin markii laxanul qowligiisa la fiirsho sida loo dhawaaqayo xaraf loo laxmina taana ilaahay waa iga dhigayo dee Soomaalida carabkooda waa wada nadiif ummadaha haada kari waaye ma aha ummadaha qaada kari waaye ma aha ummadaha caada kari waaye ma aha ummadaha aada kari waaye ma yacni Soomaalidu waa umal quraan xurufto dhan markii alfabetiga quraanka la fiirsho waa wada fahamsan yihiin qof ilaahay dee cudur oo ku sababay mooyaane ama abuuristiiba oo ka reebay mooyaane oo carab kale ama carab weyn mooyaane ama shil ay kaga dhacday mooyaane arrintaas majority Soomaalidu waa umal quraan nadiif way carabkooda xuruftii waa wada yaqaanaan sidii loo laxmin lahaa loogu dhawaaqi lahaa afarta qaab marka lagu fasiri karo waxa waaye waxa ka horta in labadaas qaab la fahmo qofku uu horta umal quraan yahay xuruftii oo fahmi kara laxmindoodii iyo ku dhawaaqistoodii midda labaad inuu qof dhageysan karaba yahay oo yacni dhageysigeedii leh waayo dadka qaar yaan bilaahi u talagelin xurufta markay maqlaan inay fahmaan waxa ay maqlayaan inay quraan tahay iyo inay music tahay inaysan kala fahamsanaynba waayo quraanku wuxuu ka samaysan yahay luqad kamid ah luqadaha hadda caalamka looga hadlo leeyahay carabi markii aad aragto meel carabi looga hadlayo adoon carabi u dhalan ama carabi aqoon waxaad isleedahay dadkani maxay ku hadlayaan haddaad timaado meel ingiriis looga hadlayo ingiriiskiina aadan u dhalan luqadina aadan aqoon waxaad isleedahay dadkani maxay ku hadlayaan yacni jawjawdooda iyo laxankoodaas unbaad maqlaysaa laakiin marnaba ma suurtagelayso inaad fahanto waxay ku hadlayaan oo dhagahaagu ay horta ogolaadaan marka in dhageysi aad leedahay maarta bilisaani qowmi aad horta carabkii yacni dhageysigii inaad leedahay carabkiina aad leedahay ama inaad carabkii horta bal qowmiga ku hadlaya tahay oo maarta ku dhawaaqi karin ama inaad maqli karto maarta aad qowmkii maqli karay oo fahmayo in quraan meesha ka dhawaaqayo aad tahay horta waa labadaas qodobada koowaad waxaa jira marka afar shardi oo kale oo quraankii lagu fasiri karo afarta shardi waxa weeye shardiga koowaad waa in يعني آد هب ساوندك آد أفسر كرت ساوندك لحن قلتنا حروفتي يا الحمد آد تقام ساوندك آد كفسرت إن آد كفسرته هب لي هذا تنجواتك هب عربات يعني هب حروفات أو عربكم أو فسره لحن عربكم فسرها جرا يا لحن دقوه فسران لحن الدجال لو فسره لحن عربك لو فسره waxa jira hab saddexaad asna oo lagu fasiro leeyahay bomatic suugan bomatic hab suuganeed yani hab suuganeed kaasna de suugaanto dhan buu ka buuxaa dunida idil yani orah ahaan ama ra'yi ahaan ay ku wada jirtaa sheekada oo laga soo maanguurinayo laga keenaya habka afraad waxa weeye article soundotic
hab la yiraahdo article synoptic yani quraankii aayadii wad akhrinaysaa jumla ahaan markii aad akhriso macnihii de waa fahmaysaa oo yani jumla ahaan baad fahmaysaa waayo article sida uu sawiran yahay markii aad jumlada u akhriso yaad macnihii fahmi kartaa مثلا marka tiraahdo marka bisinka akhrinayso kale waxa leedahay bismillah already bismillahir rahmanir rahim marka tiraahdo magacii ay baad ku bilowday macnaheedu waa iska cad yahay nabada waxay u sugnaatay allah rahmaanka ee rahiimka ah waxaan marka ku bilowday in ma yani nabada u sugnaatay allah rahmaanka ee rahiimka bismillahir rahmanir rahim already marka inaad article synopticas aad ku fasirto ama inaad boomati ku fasirto ama inaad tanguati ku fasirto ama inaad ku fasirto soundic afarta daadan hayn labadii cayn ama ujeed ama qaabad ummadii la rabay inay fasirtana aadan ka soo jeedin oo ahayd Arabic inaad tahay ama aad yani dhageysta tahay Arabiga yaqaan oo bartay dhageysta Arabiga yaqaan oo bartay inaad tahay inaad qof luqadii Arabiga u dhashay oo yaqaan aad tahay oo maartay aad xurufaadkii fahmi karto marka waa hubaal aan marnaba shaki ku